barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Awxayd ayaa xariga ka jaray xarun ganacsi oo ay hirgelisay shirkadda Kaah Business Center. munaasabadii furitaanka xaruntan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo marsharaf kala duwan. xaruntan ganacsi oo iyadoo ah mid si casriyeysan loo dhisay waxay bixin doontaa adeegyo muhiim u ah bulshada oo ay ka mid yihiin kaalmaha shidaalka laga qaato, supermarketyada, qaybta hoteelka iyo kafeteriyaha, iyadoo ay sidoo kale la sheegay xaruntan inay abuurtay shaqo abuuris badan. Cismaan Kaahin Axmed ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bulshada u qaban doonaan. waxaan maanta insha Allah aan ugu faadsanayno furno xarun muhiim ah oo runtii aan ka furayno gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. xarun ay leedahay shirkadda Kaah Business Center oo runtii kamid ah adeegyadii hore ay shirkaddu bixin jirtay ay mataqaanay bulshada soo bandhigi jirtay. marka runtii waxaan maanta halkan insha Allah aan xariga ka jaraynaa xarun cusub oo ah adeeg kala duwan oo ay shirkaddu bixiso ay gobolada ka bixiso gaar ahaan magaalada Hargeysa, taasoo ka kooban runtii adeegyada ay bulshada u baahan tahay sida kaalmaha, supermarketada, restaurantada iyo kafeteriyooyinka, qaybaha saliidaha. marka runtii waxaan maanta Burco gudaheeda ka furaynaa xaruntan oo aan isleenahay insha Allah waxay Burco ku soo korin doontaa insha Allah wax fiican hadday noqoto xagga mataqaanay adeeg ay bulshada u baahan tahay, hadday noqoto xagga shaqaalaha oo laga yaabo in dad xoogaa inooga shaqeeyaan, iyo hadday noqoto bilicdaba inaanu iyadana ka furno Kaah bilay garoon insha Allah aanu iyaduna dhowdhow oo iyadana insha Allah aan dhawaan furi doono duleedka magaalada Burco. marka waxaan maanta insha Allah aad iyo aad insha Allah aanu isugu daynaan mashruucan furno insha Allah oo ku ducayno. xildhibaan Rashiid Farax Ali iyo xildhibaan Xirsi ayaa iyaguna geestooda soo dhaweeyay xaruntan. ana oran karo meeshan jaaniskeedii bay sugaysay muddo dheer oo runtii bogcadan oo ah bogcad istiraatiiji ah oo ku haboon in lagu sameeyo dadweynaha reer Burco, runtii ganacsi ku haboon oo runtii daryeel nooc walba isugu jira. waxaan leeyahay aad baan kaaga mahad celinaa iyo runtii meelaha kale uu ka wado maanta gobolka isagoo dib celin ku soo sameeyay. waxaan leenahay ha lagu daydo, ha la camiro, ha loo duceeyo, ha lagu anigii runtii waxaan leeyahay kor loo soo qaado intuu ina siiyay in leeg aynu mahad celin iyo runtii customer baa aynu ugu noqono. cid kastoo Burco ku soo kordhisana runtii waan u hambalyeynaa. waxaan leenahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaa. bismillaah, ilaahay ka dhiga bogcad barakeysan oo runtii lagu najaxo oo lagu barbaaro dad iyo dunyaba runtii aad iyo aad ugu tarta. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa kambanigan hawsha wanaagsan inoo keenay ficilku ka muuqdo. waxaan leenahay soo dhawow haddaan Burcanahay, haddaan gobolka Togdheer nahay degmada Burcaba si fiican baan u soo dhaweynaynaa. ilaahay baa mahadaale iidaanu ku beegmay alxamdulillaah rabbil caalamiin. waxaan leenahay si wacan ha looga faa'iideysto. allah mahad leh. gabagabadiina barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Awxayd ayaa ka hadlay madashan. ilaah baa mahad leh. inagoo maanta aynu gelino ayaamii ciidda aynu ciid labaad oo Cismaan halkan inoogu soo kordhiyay ama kambanigan Kaah Business Center ay inoogu soo kordhiyeen gobolka Togdheer oo ah carwadii koowaad ama mataqaanaa supermarketkii koowaad ee laga furo, kaasoo shaqaalaynta gobolka iyo degmadaba iyo maxaan ku raahdaa bilicda iyo maxaan ku raahdaa wixii ay magaaladeen u baahnayd intaba u soo kordhiyay. wuxuu kaloo inoo soo kordhiyay kambaniganu in dadkii Hargeysa tagayay ee mataqaanaa ganacsigooda geynayay oo maanta Cismaan dib ugu soo celiyay dadkii reer Burco inay ku soo noqdaan halkii laba waran waa caws jilaal. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. xaruntan Kaah Business Center ee maanta laga hirgeliyay magaalada Burco ayaa waxay ka mid noqonaysaa xarumaha ganacsi ee ugu casrisan ee abid laga hirgeliyay magaalada Burco. waa Bashiir Ibraahim Qayir, Bulsha TV, Burco.